se waxaan kuu xaqiijinayaa ra-iisul wasaare haddii aad hal heshiis soo gasho in aad soo laaban doonto adigoo ah shacab ayaa dalka dib ugu soo laaban doontaa. diyaaradii ugu horeysay duulimaad ayaa ku baxday oo ah som 002 oo loogu talagalay inay ku duulaan ra-iisul wasaare. sidoo kale waxaad ogaataan waa markii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay dalka Soomaaliya. nasiib ayaad u yeelatay balse waxaad ku soo laaban doontaa diyaaradii loogu talagalay shacabka, kuma soo laaban doonto diyaaradii ahayd som 002. waxa ugu horeeyay heshiiska waxay tahay saxiixitaankii khilaafkii naga dhaxeeyay Kenya muranka naga dhaxeeyay oo ku saabsanaa xagga iyo badda ah ayuu rabaa saxiix inuu ka suubiyo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديا شقاليقه وقت كستيدين تهي وناكسن أوعن ومركلة فيديو كلاتو آد وحيسا بدن فضلا هذا نقول عصبتها بيت كان فلو ده والله قري سين شير قري برامج كان هدوك سوقارو وحن إذن هيا رئيس الوزراء حلقار سينتا مدن محمد حسين روبلي وحن إذن هيا لبا قضب أما لبا أرين أو كلي أيان ربا إنا كهلو فيديو كان أيان ربا وح بدن إنا كوغفا فاهيو qodobka ugu horeeya oo aan raba inaan la ka hadlo waxay tahay ra'iisul wasaaraha wuxuu Kenya u tagay wax kala ma ahan waa heshiisyo caalami ah inuu la soo gaaro. waxa ugu horeeya heshiiska waxay tahay saxiixitaankii khilaafkii naga dhaxeeyay Kenya muranka naga dhaxeeyay oo ku saabsanaa xagga iyo badda ah ayuu rabaa saxiix inuu ka suubiyo. waxa kale oo raba waxa waaye ganacsiyo kale oo cusub inuu dalka dib ugu soo celiyo ayuu rabaa. tan xigta waxay tahay qodobka labaad ee aan raba sida saxda ina idinku faahfaahiyo ee dhici doonto isbuucyada soo socota waxay tahay haddii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo uu soo galo heshiisiyo oo la soo galo dalka Kenya waxa ogaataan heshiis walba la soo galo waxay leedahay fulintaan ama fulid ay leedahay in la fuliyo oo loo celiyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. dalka maanta wuxuu ku jiraa doorasho heer caalami ah. waxaad ogaataan dalka wuxuu aaday doorasho ra'iisul wasaaraha waxa loo igmaday oo loo dhiibo waxay tahay laba arin oo kaliya inuu qabto ay ahayd sababtoo ah waa xilgaarsiye looguma talagelin inuu gaaro heshiisiyo wadamo kaleeto. waxaad ogaataan markasta oo wadanka kaleeto uu rabo inuu qaabilo qofka kaleeto tusaale ra'iisul wasaaraha hadduu aadayo wadan kaleeto wuxuu ku aadaa wax kale ma ahan waxa qaabilo dhigiisa ra'iisul wasaaraha kaleeto. haddii uu baxo madaxweyne waxa qaabilo dhigiisa madaxweyne kaleeto. balse ra'iisul wasaaraha waxa ogaataan waxa qaabilo waxay tahay waa madaxweynaha Kenya wax kale ma ka rabe heshiisiyo ayuu rabaa inuu ka saxiixo sababtoo arinkaas oo kaliya u yeelay wax kale ma ahan wuxuu u yeelaa waxay tahay lacag ayaa la siiyay si uu kaga faa'iideysto waqtiga yar ee u dhiman ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dalkiisa ayuu rabaa inuu beeciyo. lama yaabay aniga inuu dalkiisa beeciyay waxa ka horeeyay rag la mid ah ku reer ah waliba ku dad ah ayaa wadankii beeciyay hadda ka hor 2010 12 balse maanta sidoo kale ayuu taagan yahay inuu wadankiisa beeciyo kaga faa'iideysto waqtiga yar ee uu haysto. balse hal arin ayaan ku soo koobaya wax oo wada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. waxaad ogaataa mudane ra'iisul wasaare haddii aad heshiis soo gasho fulinteeda waxa iska leh baarlamaanka labadiisa aqal. haddii aad heshiis soo gasho mar labaad ayaan kugu celinayaa ra'iisul wasaare dalkan waxa dib ugu soo laaban doontaa oo aad geey doontaa oo loogu talgalay heshiis la soo galo baarlamaanka. balse waxaan kuu xaqiijinayaa ra'iisul wasaare haddii aad hal heshiis soo gasho in aad soo laaban doonto adigoo ah shacab ayaa dalka dib ugu soo laaban doontaa. diyaaradii ugu horeysay duulimaad ayaa ku baxday oo ah som 002 oo loogu talagalay inay ku duulaan ra'iisul wasaare. sidoo kale waxaad ogaataan waa markii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay dalka Soomaaliya. nasiib ayaad u yeelatay balse waxaad ku soo laaban doontaa diyaaradii loogu talagalay shacabka, kuma soo laaban doonto diyaaradii ahayd som 002. taas ayaan ku sheegay ra'iisul wasaare dalkan maanta qalaasaha gelin heshiis walba oo wadanka galane waxa dib loogu soo celin jiray waa baarlamaanka labadiisa aqal. balse maanta waxa doonaysa wax kale ma ahane dalkaaga ayaad rabtaa ra'iisul wasaare inaad beecisid oo aad ka beecisid dalal shisheeye. Kenya waad ogtahay khilaafka nagala dhaxeeyo balse maanta waxaad wadaa khilaafkii ayaad ka faa'iideysanaysaa oo aad ku qaadanaysaa dalkaaga lacag.
go-aanka ugu dambeeyo waxaa leh dalkani baarlamaanka. waxaad ogaataa ra-iisul wasaaraha waxaa soo magacaabay ama digreeto ku soo saaray lagu soo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. waxaana xilka ka qaadi kara maantay oo digreeto ka soo saari karo madaxweynaha sababtoo ah shakhsi la magacaabo ayaa taa wali sababta madaxweynaha oo kale tamatiido oo la doortay oo aan la soo magacaabay balse la doortay madaxweynaha adigase shakhsi ayaa ku doortay xilka ayuu dib ka laaban doonaa. ra-iisul wasaare dhibka wado dalka ka daa mar labaad ayaan kugu celinayaa rafaadka iyo dhibaatada dalkan oo soo mar waa ognahay balse adiga waxa maanta la damacsan tahay intii inka weyn dalkani haf mudanin inaad qalaasad dagaal iyo dhibaato badan aad geliso. fariinteedu ugu dambeysay waxay tahay ra-iisul wasaare haddaad heshiis soo gasho ogow dalkan waxaad ku soo laaban doontaa adigoo shacab ah. halkaas ayaanu kusoo goobaya barnaamijkeena fiidiyowan hadduu kusoo gaaro sii sheer garay uu gaarsii walaalaaga qaaliga si u ogaadaan xaqiiqada saxda ay taagan maanta.